wafdigan way hogaaminayeen madaxda ururka qaranada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Faafan ee dawlad deegaanka Itoobiya ayaa maanta kulamo kala duwan la qaatay bahda garsoorka ee Somaliland waxaana wafdigan ay horkacayeen madaxda ururka qaranada Somaliland ee Soola ay kulamo kala duwan iyo isxog waraysi la yeesheen maxkamadaha kala duwan ee Somaliland taasoo ay ugu horeyso maxkamadda sare ee dalka maxkamadda gobolka Murudijeex maxkamadda rafcaanka maxkamadda gobolka maxkamadda degmada iyo sidoo kale xafiiska xeerlaalinta gobolka Murudijeex waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wafdigan ka socday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya garyaqaanada iyo bahda garsoorka ee maxkamadahaasi iyo xafiiska xeerlaalinta gobolka Murudijeex kulamadan oo ahaa mid ay aqoon isweydaarsi iyo wax korodhsi ay isku dhaafsanayeen labada dhinac ayaa gabagabadii waxa ay hogaanka ururka qaranada Somaliland ku soo dhaweeyeen xafiiska qaranada Somaliland waxaana halkaasi ka hadlay ugu horeyn gudoomiyaha ururka qaranada Somaliland mudane Xasan Cabdullaahi Cawaale martidii looga timay gobolka dawladdeegaanka Soomaalida hadda gudoomiyaha hogaaminaya gudoomiyaha garyaqaanada ama ururka garyaqaanada ee dawladdeegaanka Soomaalida iyo gudoomiyaha maxkamadda sare gobolka Faafan runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa martaas muddada ay joogeen waxa la kulamo la yeesheen madaxda sare ee garsoorka guud ahaan xafiiska xeerlaaliyaha gobolka madaxda gobolka garsoorka gobolka Murudijeex iyo guud ahaan ururka xubnaha ururka hogaanka iyo xubnaha ururka qaranada ee Somaliland runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo ku sheekaysanay wax badan isku wadaarsanay aqoon badan kororsanay waa aragtinimo badan ka helnay bariika maalin xiriirka ee sii socon doona insha Allah waxaan rajaynayaa noqon doona mid meel dhalaah oo gaara meel ay garsoorka iyo bahda cadaaladda ee dawladdeegaanka Soomaalida iyo Somaliland ay si wanaagsan iska kaashadaan caqabadaha cadaaladda hor yaalla dhinaca ay ku xaliyaan horumar wanaagsan oo cadaaladeed insha Allah sameeyo doono aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dhammaan xubnaha ururka gudoomiyaha xubnaha kale garsoorayaasha maxkamadda sare dhammaantood waan wada salaamayaa wafdiga noo timi aad baan u salaamayaa iyagana aad baan u soo dhaweynayaa kullay wada hadhay looma hadlo laakiin intii hadalkii badnaayoo dhan waxay yidhi gudoomiyaashii iga horreeyey aniguna markaa maadaama aan ahay gudoomiyihii guddida ruqsad bixinta iyo anshaxmarinta qaranada oo dhan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaana leeyahay insha Allah xiriirkeenaas ma noqdo mid intaa ku jooga kii halkaas ku dhamaadana ma noqon doono insha Allah waxaan rajaynayaa in marar badan oo dambe inaynu kulmi doono inaynu sii wadi doono xiriirkeena aad iyo aad baad mahadsantihiin aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca qaranada gobolada bari waxaan marka koowaad soo dhaweynaynaa waan ka qayb ka nahay soo dhaweynta gudoomiyaha qaranada dawlad deegaanka Soomaalida iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Faafan iyo wafdiga ay hogaaminayaan inta kadib waxaan hogaanka ururka qaranada Somaliland oo hogaaminayo gudoomiyuhu Xasan Cabdullaahi Cawaale waxaan aad ugu bogaadinaynaa annaguna aan baarigaynaa qaybteeda ka nahay isku xidhka iyo soo dhaweynta iyo hawsha fiican ay qabteen ayaan iyadana aad iyo aad ugu amaanaynaa dhankooda waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay madaxdan ka socotay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyay gudoomiyaha ururka qaranada madaxa bannaan ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo aad ugu amaanay hanaanka waxqabad iyo cadaaladeed ay saaka indhahooda ku soo arkeen sheegayna in booqashadoodana ay tahay tii ugu horeysay isla markaana ay sii wadi doonaan cilaaqaadka wada shaqeyneed iyo aqoon kororsi ee labada dhinac ka dhaxeeya maanta anaga waxaa sharaf noo ahayd inaan la kulanno isagoo ururkan aan bahwadaagtana ee walaalaha aanu nahay ee qaranada madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Somaliland isagoo noo hor socda inaanu meelihii yoolka noo ahaa oo aanu maaragtay kolba ka socdaalka iyaga ku miisaaminay inaanu soo gudana sidii aanu u soo indheendheen lahayn isla markaana xog aan uga raadsan lahayn ugana heli lahayn waxaanu soo aragnay wax fara badan oo dhiirigeliya oo tusaale ahaan maxkamadda sare baanu jaanis u helay gudoonkoodii ugu sareeyay qaar kamid ah gudoomiye ku xigeenka inaanu aragno iyo runtii garsoorayaashii oo dhan nidaamka garsoorka ee maaragtay
xilka loogu gudto oo dhageysiga waan soo aragnay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda waxaa kaloonu tagnay meelo kala duwan oo shaqadu la xidhiidho sida xeer ilaalinta gobolka Maroodijeex oo kale iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodijeex iyo maxkamadda gobolka Maroodijeex iyo maxkamadda degmada Hargeysa intaana waxaa noo dheereed inaanu meeshan aan joogno imika oo ah xafiiskii guud ee ururkan madaxa bannaan ee qareennada inaanu maaragtay iyana kula kulanno xubnihii ururka kuwoodii mas-uuliyiinta sare iyo kuwo kale oo maaragtay waaxyaaba run ahaantii waxay noqotay arrintan arrin annaga lafteeda aanu ka helay faa'iidooyin fara badan wax fara badan baan isu wadaarsanay nidaamka sharci ee waddanka ka jira iyo kaanu ka nimid iyo qaab dhismeedka cadaaladda ee meesha ka jira iyo hanaanka sharci wax walba waanu aragnay aad baanu arrinta ugu qanacnay waxyaabaha nusni waxaas ku fiicnaan lahaa oo iyagu nagu soo kordhiyeen ama anagu waan ku kordhinay way jiraan alxamdulillah maanta de waxaan maaratan anagu taaganahay waxa weeye anagu aqoon aanu korsanay kasoo hadana dhiirigelin baanu helay aad waxaan ugu mahadnaqayaa ururka cid kasta oo ka qayb qaadatayna maaragtay waanu mahadnaqaynaa assalaamu calaykum maxkamadda gobolka gudoomiyaha maxkamadda degmada garsoorayaasha ururka qareennada madaxa bannaan ee Somaliland marti sharaftan ila socotay qareennada qareennada madaxa bannaan ee dowladda deegaanka Soomaalida madaxa xafiiska qareennada dowladda deegaanka Soomaalida qareennada dowladda deegaanka Soomaalida xogayaha ururka qareennada dhammaan waan salaamayaa tan labaad waxaan mahad celinayaa sida fiican ee noo soo dhaweyseen hadday tahay maxkamadihii Somaliland heerarkoodii kala duwanaa xeer ilaalintii ururkii qareennada oo iyagu door weyn ka ciyaaray kulankan noocan oo kale dhaho dhammaantood aad baan ugu mahad celinayaa tan labaad waa run kuma sii dheeraanayo nidaamka macnaha kulankeennani muhiimadda uu leeyahay guddoomiyaasha ayaa hore u soo sheegay marka anaguna taas uma sii adkaynayaa muhiimadda hadda kulankeennan iyo xiriirkeena fiican ee bilaabmi doonaa muhiimadda uu leeyahay bulshada muhiimadda uu leeyahay nidaamka cadaaladda muhiimadda uu leeyahay in ii sheegay spirit track ay dadka helaan oo tusaale ahaan oo kale kiisas badan waxaa laga yaabaa u jiitamayay qofkii oo Itoobiya galay deegaanka Soomaaliya galay